aad baan uga xumahay dadkan oo u tacsiinaya hadalla waxba tarmay hadalka adduunka oo dhan hal talaabo ficila ka fiican talaabo qaada shalay baa airportiga jigjiga lagu laayay gabdhihiidii oo waa kalada fuulka cunaya iyo bunka wendi loo baxiyey kana dhamal wendi baa loo baxay gabdhihiina macilaan baa idin saaran maxaa xidhay kuwan xaabada doonaya maanta kolka qabridaarisaa loo galay soo in galabta kuwa xaabada doonaya xabashidoo dhan la laaya ma ahayn soo intii qoryaal waa buuxdaa qoryaha idinkaa isu haystee hal xabashi oo jooga qabridaare inuusan kor u baxin soo maaha ilaa 100 u dhaafta tirada 100 oo qofkiiba aad 10 u dishaan soo in ay dowladaha Mareykanka yimaadaan dhexdhexaadinta maaha iyo yuhuudda kuwa maamusha Ethiopia. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعد لا شرف أعلى من الإسلام ولا كرم أعز من التقوى ولا شفاعة أنجح من التوبة ولا لباس أجمل من العافية الحر حر والمسه ضر أما بعد وحالك تعسي وقدر يا دتك اللي واحد سوقي ميال قبل دهر إيركي ودad ka geeriyooday iyo gobolka oo dhan aan uga tacsiinayaa waxaan u tacsiinayaa gaar ahaan ninka aan saaxiibkay ahaa wiilkiisii isxabaal waxaan maqlay ninkan xasuuqa geystay waa shaqadoodii dacaadiga ahayd ba aygii hore haddaan dira ka dambe lama direen baa leeyihi xasuuqan oo kale ka dhaca maalin walba meel walba shalay buu jigjiga ka dhacay xildhibaanadanadii la laayey waa leeyihi waa kan hadda fuul iyo canjeerada cunaya iska jooga halkan shaqadiisana uu qabtaa weliba magacii baa laga bedelay magacii wendi baa loo baxiyey wendi nin rag ah geesi baa loo baxiyey kana dhamal wendi bay u baxanayaan iskumaynaan ogeyn innagii reerkanu tollima iskumaynaa ogeyn waa isu nasan jirra kolba laakiin dhibka maanta yaale waxaa weeye ummadda way saxaran tahay dad lala hadlaa ma joogo soomaali oo dhan baa saxaran say u dhan tahay kuwan kelilkuuna way ka sii daran yihiin waa saxir waxan saxir weeye xaqiiqada waa nooca wiilka wuxuu yidhi baa le aabbahay baa lagu dilay 7 qabridahare aabihii buu u aarayey aabihii awowgiis kaleba u aaray wakaa waana ka hadda iska jooga xeradiisa dhamal wendi baana loo baxin kii horena wendi baa loo baxiyey kii hore waa laabaa yidhi hal wiiloo waa shana waa la waayey boqor iska daayay kana waa sida oo kale macnuhu waxaa weye loogesi dadkan kelilka jooga waa loogesida waarta ficilkeeda libaaxa mid dili hareeraha iska tubi afkoo dhiigla markuu khaaq ku yidhahdana waa yaaci ficilku waa u noocaa waxaa weeye iyagu hadday islaynayaanna haddaad aragto logesi islayni aqligaa keenmaya geesi waaweyn bay leedahay kawbay iskaga dhigaan 100 bay dhigi meydkeeda hadday iyagu isku gadoodaan xabad naaga oo hata maaha aarkii waa aar gool ayaa iyagoo kun ah intii ka disha kaka dhaqaaqaya hareeraha iska tubi wax kaloo ku sawiro garan maayo lama yaqaan dadka Soomaalida siirkooda adduunka oo dhan ma baadhay been bay sheegayaan kulligood carab bay sheegtaa midoo meel bisoo carab ma aha carab siirkoodana ma afrikaanna ma aha reer Yurub kuwana ma aha anu waxaan u mariyay markaa qiyaasay Muuse Saamiri ninka reer Bani Israa'iil nabi Muuse markii Ilaahay uu la ballamay kii dibiga caabudsiiyey kii maanu marin ilaah qabiilay caabudaan waxa sidoo galay islaam bayna ahayn islaamnimaday sheeganayaan baa beena meel walba oo kuwa isku leenayaan ninkan madaxdooda waad u jeedaa madaxdooda ayaad u jeedaa waad yaqsanaysaa nin kule masuul baan ahay oo islaamka gaalada ka jecel islaamka gaalada marka hadda wuxuu sameynaya kii halkan ahaa iyo hawsha dhacaysa Muuse bix wuxuu sameynaya kii waa la wada daawanaya islaamkii gaaladu jecel yahay Soomaalida iyo Ingiriis buu jecel yahay qarannimadana qabiil buu ka jecel yahay nabadana colaadu ka jecel yahay midnimadana kala tagu ka jecel yahay wax wada cunka kaliga cunni buu ka jecel yahay
dugsiga quraanka dugsiga khaniisiintu ka jecel yahay gabdhaha xijaaban dhilla madax qaawan oo gaal ah oo hooyadeedna gaal ahayd ayana gaal ah ayuu ka jecel yahay oo madax qaawan ninka noocaasee loola noolaanee madaxweynena sheeganaya bal aduu qiyaas ficilkiisu waa u nooca dhammaantoodna waa wada noocaas nin walba barayska kanunba hadda falki fuliye mid kasta oo mas-uuloo soomaaliya waa nooca dhaqankiisu dadka firidi baa ka dhamaatay buushihii baa hadhay buushe waxa saa u galana waa nimanka reer yurub iyo maraykan iyo ingiriis iyo yuhuud waxaa lasoo karaysa hadda ugu darana waa imaaraadka qoys qoys baa loo laayay qorqor baa loo laayay waad ujeedaa wasaaradda gaashaandhigga waxa ka dhacaya waad ujeedaa raggii kii hiiraan joogay shabaab baa la diri lahaa iyo waxoo gruubka oo dhan ba in la xaaqay markay ka dhacaysaa baraaway ka dhacaysaa baydhabay ka dhacaysaa laascaanay ka dhacaysaa garoway ka dhacaysaa xaggee jeedaa waa xaggee wareer bay ka dhacaysaa bal adigu hadday gaal dilayaan waxba kaama dhaceen kan soomaaliga ah um wuxuu ka adig yahay soomaali waxa haysta waa maxay waxa weeye waa 6 iyo 3 meel ah 6du waa maxay waa qori iyo qabiil waa qaad iyo sigaar waa qabadin iyo qabale iyo qurba joog gaala jooga kuwaas waa meel 3 baa sii xukuma fuli geesi ah aqoon-yahan jaahila caaqil doogsin dhabala 3daas baa sii xukuma 6da hore 7da hore waxa dadka haya waa 10 nin gaalo oo dhan 10kaas adeegsataa waa qurba joog PhD buu wataa waa kaartoon wataa diin male oo dhaqan male irbad ma samayn kartaa mayaba ku odhan haylaadna ma samayn kartaa waa maya oo 30 sano cumrigaaga u qaalisanayd magaal baktiyey sheekadin baa lagu akhriyey haddaad waxba bulshada kusoo kordhin halkaas fadhiya shaah ninka weyn 50 koob buu cabayaa maalinkii wuxuu sugayaa wasiir in laga dhigaa magaasime lacagu boobu doonayaa oo uga soo noqday yurub kuwaa uga dambeeya wasiirka markii laga dhigay 6 bilood buu ka gaadhsiin gabadh cad gaadhi cad iyo guri cad gaadhigiisa waa jinko kale muraadaha madow hadduu halkaa taagan yahay asagoo ku arka adigu arki maysid waa meel soomaali oo dhan waa nooca madaxdu gawaaliya saarantahay waa beersan shacbigii ay u ahaayeen madaxda ma arkayo bidhaantoodana arki maayo wax ma deeqaan waxba kama caagana waa dad wad calool weyn oo cir weyn oo waxba deeqin wax laga hadla maaha dad lala hadla maaha wuu la hadlay timacadde raggii gobta ah ee soomaalida ah ee dhammaaday dadkaan la hadlayaan lagu ogeyn duxiyo iimaan buu duxiyo iimaan timacadde hadalka keliha raas iska taagi lahaa marra wuxuu yidhi dugsi mare qabyaaladu waxay dumise mooyaane kaa keli ay qaadan lahaayeen timacadde abdullaahi suldaan timacadde waa raggi jiray fikirkii bay qaadan lahayn kacaankii barakaysnaa 21 wiil ee kacaankii barakaysnaa dhaliyey ee soomaaliya africa oo dhan dhaafiyey ee warshadaha hubka sameeyey ee warshadihii maxaa gaadiidka sameeyey ee africa oo koonfur afrika xoreeyey africa kale badh xoreeyey ayay raaci lahaayeen waa loo kiraystay xalasho oo shaqaystayaal tiyaarsaba looga yeedhay 200,000 oo ciidanka Itoobiya ah ayaa Cabdiraxmaan Tuur loo soo dhiibay iyo musabixe dadka islaamnimada walaalnimada ugu tagay xasuuqeen geedheer baasheedheer 152,000 oo Soomaali galbeed lagu dilay weligeedna maana sheegin ceebtan sii diidaneen 152,000 oo inta ku jira faylkooda ayaa musabixe qaba wuuna og yahay dadka ay ka dhinteenna wuu og yahay maxamed faarax aydiin 12,000 buu raaciyey webiga iyo ninka la odhan jiray faarax gubadley aray balcad ka foorida u banee balcad ha ka furtee waa faarax gubadley baarcad iyo 3 wiilba intuu qaaduu raaciyey webiga waa dadka islaamnimada walaalnimada ugu tagay cabdullaahi sugaldogob 8 buu ku dilay 8 xooga dalka nin wala 200,000 oo ciidanka Itoobiya watay Soomaaliya 3 caloosho u shaqaysta iyo wixii ay wateen oo kuwan mujaahidiinta hadda ku haya yuu ku jahaaday yaa yaalay dadka walaalada Soomaaliya cabdullaahi sii ku jahaaday yuu ku jahaaday caydiid maxay keeneen 14 madaxweyne ka dambeeyay caloosho u shaqaysta buunshe ma buunsha wax ku qaban maxay qabteen kuwa ka dambeeyay waxa qaybsan weeye waa waxa sakaraadka waa dilaaliin
soomaaliya oo dhan waxaa ku fillayd soomaaliya oo dhan ayadoo se u dhanta waxaa ku filan magaalada berbere la yihahdo ama boosaaso dekeda yaa saan u dhannahay ugu filan deked ahaan kuwa waaweyn iska da dhul ahaan waxaa ku filan se u dhantahayba dhoobaweydi inta maraacata udhaxaysa qaraheedu sac buu leegyahay dekeda intaa le badda intaa la eg bay leeyihiin from jabuuti ilaa laamo iyagaa iskale badda waxaa loo googeynayaa rag baa raba caluushooda kuway sii dhalaan inay dhowaan keenaan kuwana digiyaadnaba iska dhigaan wax garanaya ma jiro shacbigu waxaa ilaahoodi waa qabiil waa iriya daarood iyo mid lamida iyo kuwo kale nima waxbuu sheeganay iri daarood dhintay goorma 20 kun oo sano ka hor bay dhinteen maxaa inagu qabana ahway maxaa la qabtaa maxaa tala ahway waxa laysku diyayo waa bax soo hal qoys ba cantooma aan dhannayn waa cantooba soomaali oo dhan haddii laysku daro meel walba waa 3 milyan baa la ama way ka yartay jilib baa ka adag jilib baa ka badan kuwan inay jooga dhulka in xabad lagu qaato in xabad iyo madfac lagu qaato waxaa ka dhib yar dad in lagu qaato dadka shara qalbiga laga toogto jirka hadduu nawar ku dhaco wuu bogsan qalbiga haddii lagaa toogto weligaa bogsan maysa qalbigaa laga dilay dadka ma fal baa lagu sameeyey ma sixir baa wax ka daran baa lagu sameeyey tan maanta ka dhacday qabri daahre wiilku wuxuu yidhi baa layidhi aabbahay baa lagu dilay qabri daahre 77 waa sida laga soo tabiyey kuwa uu dilay qayb ka mida in isxabaal baa ku jiray isxabaallo waa ninkii taarka u hayay xoogga dalkao dhan xabaalaha intuu galay xabaale waayeel ninkii hogaaminaya bidax ugu dhufo leexin bidax hilfaha u qaaday hadda aabihii awowgii ugu aaray qola soomaali ah waxaa lala xidhay dirdhaba iyo kuwa etoobiya maxamed faarax aydiid baa wuxuu laayay maraykanka xamar waasu meydkii jiijiiday joornaal baa lagu qoray joornaalkii baa jeelkii lagu geeyey qoladii etoobiyaabga ahayd sacab bay tubeen sacab ninkii la xidhnaa ee wax weydiiyey baa aniga ii warramaya war inagu col baybaynu ahayne maxamed faarax aydiid yani maraykankanu jiidaya maxaa u sacbinaysaan monyi baa lagu yihi monyi doqon war inaga loo kaalba ayd baa lowxaanu dagaal sukeeyuha afrika u ahaa ma ninkan maraykan dhagaha ka raacay mayd sii jijidaale hawsa cabinin war waxu doqonsana aniga baa yaxyaxay buu sacabka ku beeray war dagaalku kolba meel buu joogaa war caruurta yararka isku wada abtigayen abtiga war waxa meesha ka dhacayo sooqaqasi ma aha war meeqa awow baad isu dhasheen war meeqa dhulkiinu intee leeyahay baaxad kuwan berkada isku dilay balday bal kuwan isku dilay bahashi kuwan berkashela isku dilay war meel walba oo soomaali teeto ninkan soomaaliga ah ya ninkan waa geesi fulaya haddii xagga loo kaco gaalada xafaad buu qabaa haddii soomaalida siisay 100 buu dili 100 waa geesi fulaya kana waa aqoon-yahan jaahile kana waa caaqil dogsin caaqiliinta wax fulin jire waa dogsin dhabad kolba ninka madaxda bufoostada u horta wadaanta igu shubreey hebelana madax ka dadka waxaana haysta dhalinyaro u baahan yihiin dhalinyaro leegada oo kala oo ka culus oo ka ilbaxsan bay u baahan yihiin dadku uma baahna nin ibtiisa iyo afkiisa keliya daacadu ah raggan madaxda oo dhan ibtooda iyo afkooda daacadu yihiin kuwa la socdana waa la nooc ma yaa tegi laha maanta ma waxaa tegi lahay waa kan hadda maxaa hadda kililka awa kililka shanaad 400 kun oo dhabuuba 400 kun oo dhilo 400 kun oo tuugsani 400 kun oo gurguuran ma matac baa loo baahay looma baahan waa in sarki wada marno oo kaama soomaali baa ataa ka halkaa maraya geed weynu cadaada tartaada laga beeraya adigana waa daawanaysaa gabcihiina macilaan baa idiin saaran maxaa xidhay kuwan xaabada doona maanta kolka qabri daaristaa loo galay soo in galabta kuwa xaabada doona xabashidoo dhan la laaya ma ahayn soo intii qoryaal waa buuxdaa qoryaha idinkaa isu haystee hal xabashi oo jooga qabri daare inuusan kor u bixin soo ma aha ilaa 100 u dhaafta tirada 100 oo qofkiiba aad 10 u dishaan soo in ay dowladaha maraykanka yimaadaan dhexdhexaadinta maaha iyo yuhuudda kuwan maamusha etoobiya ya maxaad sugi maalinaad carabta baa laceebay kuu koraysaa cimri kuuma dheerayso wax rag lagu caayo waxaa uga xun baa layidhi waa beenaale waa bakhayl waa ballifurow saddexdiiba maydaan ahayn maxaa laysku ogaa habash waatane iyadii waa cunto walwaal ku dhacdee maa intaa midowdaan waxan kadana iska uruursaan qashinka ya dhabuubka maalxaan kale adigu nin kasta oo soomaaliya shilma haysta ma 100 dhabuuba beeraha ku qoto geedka gari waa ku baneeyo intaad qalaysi waa qaybinay maataadaan maxaad dadkiina horay maxaad u celin dhulkan banaan maxaad uga celin walaalada ka berbere joogiyo ka jabuuti joogiyo ka
booq jooga meel walba ka jooga kaaraan maad keentid ma adigu buuxisid yaydan iscunaysa oo dhul ma haystaana maad inta ma nin adiga dhulkaa dooni baa dhul kula qaban soo gala dhulka iyaga kilalka shanaad soo gala nin walba kilalka shanaad dhulka raba oo soomaaliya saa kuula ma nin dhul adiga kaa raba yaa dhul kula ridi oo xabasho kula dirin wax hore u dhacayna waan ogeyn wax sinjirkooda aan la aqoon weeye muuse saamuri baa dhalay waxaanay sheeganay carabiya waxa midna maaha ficil maa lagu arki lahaa iyagoo dhan baa addoon ah soomaalida oo dhan waa intaad soo gashaan oo shidaalka idinkaale timaadaan oo webiga jubba iyo jolol iyo mujo iyo raamis toddobadaa webi intaad soo degtaan soo kaco wax iska celiya kunka nina soomaaligu 100 kun oo etoobiya ka aragtaa 100 kun oo etoobiya waa wax la ogaaday waxa idin qaybinayeen waa hogaamiyaashan ku wada xiran maraykan iyo ingiriis aad baan uga xumahay dadkan oo u tacsiyeenaya hadalla waxba taramay hadalka adduunka oo dhan hal talaabo ficila ka fiican talaabo qaada shalay baa airportiga jigjiga lagu laayay gabdhihiidii oo waa kala dib fuulka cunaya iyo bunka wendi loo baxiyey kana dhamal wendi baa loo baxay salaamu calaykum waraxmatullah